nabaday ku soo dhawaada taxana gaaban oo aynu maalin kasta oo axad ah ku soo qaadan doono qaybo kooban oo ka mid ah buugga Safiirka. Buugga Safiirka waxaa qoray Peter Bridges oo ah danjirihii Maraykanka u fadhiyay Soomaaliya sanadihii u dhaxeeyay 1984 ilaa 1986 waxaana af Soomaali u rogay Kamaal Marjaan. qaybta 8 RAAS xaafuun waa taag ku dhex yaala badweynta Hindiya oo ballaadhan dhinaca bari oo jihada ay baddu u sii dheer tahay waxaa ka muuqda dhagax dhismeed iyo salaxyo midabkooda oo casaan iyo huruud yahay jooggooduna waxa uu ahaa ilaa 152 iyo badh mitir gasiirad lamoodkan xaafuun oo ka go'an dhulweynaha kale ballaciisu waa ilaa 15 mayl oo galbeed iyo bari ah iyo 10 mayl oo waqooyi iyo koonfur ah cirifka waqooyi galbeed ee RAAS xaafuun oo jihada dhulweynuhu kaga xidhan yahay waxa jira gacan bacaad oo dhinaca waqooyi galbeed gudaha u sii dheeraran waxaanu noqday moos xidhay inta badan ee biyaha badda mooskan bacaadka waxa uu dheeraran yahay dhowr mayl oo u dhaxeeya jasiirad lamoodka dhinaceeda galbeed iyo dhinaca bari ee berigu ka xigo jihada koonfur galbeed ee jasiirad lamoodkana gacan kale oo bacaad ayaa dheeraran ilaa beriga gacankan beriga oo isku xidha dhulweynaha beriga iyo RAAS xaafuun waxa uu iska moosay biyihii labada dhinac ee badda isla markii uu dhamaaday dagaalkii koowaad ee adduunku ayay Talyaanigu xaqiiqsadeen in gacankan oo la xeeb dheer oo jooggeedu gaaban yahay dheeraranna ilaa beriga uu yahay dhul ku habboon soo saarista milixda sanadkii 1922 ayaa shirkad xarunteedu ahayd magaalada Milaan ee dalka Talyaanigu ay dhismo ka bilowday jasiirad oo eegta xaafuun isla sanadkaas 1922 waxaa RAAS xaafuun soo weeraray koox Soomaali oo tiradooda lagu qiyaasay 2,000 oo ruux weerarkan waxa uu daba socday halgankii ay Soomaalidu iskaga caabinaysay gumaystihii Talyaani oo ay diideen inuu qabsado waqooyiga bari ee Soomaaliya dagaalkani waxa uu joogsaday markii Talyaanigu uu gurmad ugu yeedhay dooni qoryo ku rakiban yihiin si ay u garaacdo dagaalyahanada Soomaalida ee weerarka soo qaaday kadibna dhismihii ayaa dib loo bilaabay iyadoo la adeegsanaya 3,500 oo shaqaale Talyaani iyo 1,200 oo Soomaali dhismahan waxaa la dhameystiray sanadkii 1929 waxaana degtay oo adeegsatay shirkad ganacsi oo markiiba bilowday in badda RAAS xaafuun ay sanad kasta ka dhoofiso 300 oo kun oo tan oo milix shaqaalaha Talyaaniga ee RAAS xaafuun u joogay shirkadan tiradoodu waxay ahayd 150 ruux oo deganaa kaam ay shirkadu lahayd oo lagu magacaabi jiray Dante waxa uu ahaa hal abuur magac weyn ku lahaa dalka Talyaaniga oo noolaa intii u dhaxaysay 1265 ilaa 1321 waxaanu ka mid yahay astaamaha tusaalaha koowaad loo soo qaato marka laga warramayo dhismaha iyo suugaanta afka Talyaaniga RAAS xaafuun waxa ay marin u ahayd inta badan ee maraakiibta isaga gudbaya Talyaaniga iyo dalka uu gumaysan jiray ee Soomaaliya laakiin sanadkii 1941 markii socday dagaalkii labaad ee adduunka ayaa Ingiriiska oo weerar hore uu Talyaanigu uga qabsaday British Somaliland waxa uu ciidamo xooggan ka soo diray dhinaca Kenya oo haystay ciidanka Ingiriiska waxa ay qabsadeen dhammaan dhulkii bariga Afrika ee Talyaanigu haystay waxaanay burburiyeen hawlihii milix dhoofinta ee RAAS xaafuun oo aanay ilaa hadda dib u dhisin waxaan ogayn hay'adda iskaashiga farsamo ee Jarmalka galbeed oo loo yaqaanay GTZ ay RAAS xaafuun ka fulisay daraasad dhawaanna koox la taliyaal Maraykan ayaa sidaas la mid u soo saaray daraasad ay ugu tala galeen ganacsatada Maraykan oo xaqiijinaysa in RAAS xaafuun dib loogu soo celin karo ganacsiga milixda laakiin inta aan ogahay waxay waayeen lacag dhan 54 milyan oo dollar oo lagu qiimeeyay kharashka ku baxaya mashruuca dib u bilaabista dhoofka milixda wax soo saarka milixda ee RAAS xaafuun ka soo bixi jiray dagaaladii ka hor waxa uu ahaa 500,000 tan sanad kasta iminka haddii ay Soomaaliya awoodi lahayd in ay sanad kasta dibadda u dhoofiso milix xaddiga leh waxa ay noqon lahayd tallaabo muhiim oo ku buuxiso kaalinta baayac mushtarka ee bannaan waliba wax soo saar inta ka badan waa laga heli karay RAAS xaafuun sida lagu sheegay daraasadda Maraykanka haddii dib u dhis lagu sameeyo wax soo saarka milixda ee RAAS xaafuun waxa la gaarsiin karay ilaa 4 milyan oo tan oo milix sanad kasta taas oo milix aad u badan marka loo eego tirada guud ee milixda dunida oo dhan laga isticmaalo sanadkii oo 175 milyan oo tan maalintii aanu tagnay xeebta RAAS xaafuun ayaa markii aanu waqti ku qaadanay markabka dushiisa kadib General Kim Shepard oo mas'uul ka ah diyaarad kuwa qumaatika u kaca oo markabka saarnayd waxa uu aniga iyo Florine ku qaaday diyaaradda si uu dusha sare nooga daawasiyo muuqaalka dabiiciga ee RAAS xaafuun waxaanu isbarbar fadhiisanay kursi ku yaala meel ku dhow albaabka rarka diyaaradda oo furnaa marka hawada sare laga soo eego waxa uu ahaa muuqaal aad u fiican waxaanu dulduulnay xeebta si naxariis leh ayuu diyaaradda dhinaca u janjeeriyay si aanu kadinka noo furan hoos ugu eegno dhulka aanu dul haadayno markaanu dhinac u jiifsanay waxaanu markiiba dareennay cabsi in aanu ka dhici karno diyaaradda oo kadinka aanu dhaafi karno markaas ayaan hubiyay in aanu si fiican ugu xidhannahay kursiga waxaan arkay kumanaan tan oo milix oo ceegaaga goobtan inta la isu ururiyay ayaa sida carratuulka loo dhoobay laakiin dagaalkii ayaa ka soo gaaray oo lama dhoofin goobta ay milixdu tuuleyd meel aan ka fogeyn waxa ka muuqday tuulaha yar ee Hurdiyo
waxa uu Talyaanigu ka dhisay jid xadhka iyo taar ka samaysan oo dhererkiisu yahay dhowr iyo 10 mayl. Jidkaas waxa uu isku xidhaa jasiirad lamoodka Xaafuun iyo goobta milixda laga soo saaro. Waa goobta gacanka bacaadka ay kaga xidhan yahay bariga. waxaanu aragnay line dheer oo ahaa bariishka ka samaysan xadhkaha iyo taarka. 7 taawar oo ka soo dhex baxa burburka iyo hadhaaga Dante ayaa si taxan dhinaca koonfureed ee badda uga muuqda. Jidkani 1 mayl ayaa badda sii gashan yahay, waxaanu tagaa goob jooga dhulka ee badda hoosteeda uu gaarayo 30 fuud. halkaas oo istaagi karaan maraakiibta milixda qaadaysa ayaa loogu talagalay in jidkan loo sii maro si loo raro. sida ka muuqata waxay ahayd shirkad ganacsi oo aad u ballaaran. markii aan safarkan ka soo noqday ayaan Washington u diray warbixin aan filayay inay dhiirigelin doonto xiisaha shaqada milixda. lama aan yaabin in intii aan Soomaaliya ka shaqaynayay iyo ilaa hadda aan weli wax horumar ah laga samayn dib u dhiska shaqada milixdan ee RAAS Xaafuun. dhowr arrimood ayaana sabab u ahaa inay sidaas u dhacdo. waxaana ugu weyneed maalgashadayaasha shisheeyaha ah oo aan diyaar u ahayn inay raasamaal geliyaan ganacsi ka socda dal uu ka jiro nidaamka damaca badan ee siyaad barre. dalxiiska ayaa isna noqon karayay il kale oo dhaqaale, waayo Soomaaliya waa dal qurux dabiici leh, xeebihiisuna weli aanay wasakhoobin. dalka Kenya oo ay Soomaaliya dhinaca koonfureed daris ka yihiin ayaa isna leh xeeb fiican oo loo dalxiis tago. qaar badan oo ka mid ah shirkadaha leh hodheelada caalamiga ah ayaa u sahan yimi xeebaha Soomaaliya si ay uga dhistaan faracyo ka mid ah, laakiin waxay dib u gurteen markii ay arkeen in jawiga ganacsi ee Soomaaliya ka jira aanu soo dhaweynayn. ganacsadaha indhaynta u yimaada Soomaaliya waxa ay u dhowdahay in bilowgaba uu caqabad iyo qalafsanaan kala kulmo gegida diyaaradaha ee Muqdisho marka uu imanayay iyo marka uu ka baxay labadaba. ganacsada Maraykan ah ayaa mar xabsiga loo taxaabay isaga oo markaa diyaar u ah inuu raaco duulimaad kacayay, waxaana lagu eedeeyay inuu lacag sifa sharci darraha dalka uga saarayay. lacagta lagu haystay waxay ahayd jeeg mushaharkiisii ahaa oo uu jeebka ku sitay. qunsul Constance ayaa hawl adeeg kadib ku guuleystay inuu ninkaas xabsiga ka sii daayo. waxay ahayd dhaqan inta badan la kulmaan dadka noocan ah ee soo booqda Soomaaliya. waxay iska hor iman jireen mas'uuliyiinta Soomaalida ee damaca iyo hunguriga badnaa. dadka dalka ku cusub waxa kale oo ay dhibaato kala kulmi jireen dhinaca cuntada. kuwa badan ayaana ku xanuunsaday cuntooyin ay cuneen. waxaa laga yaabay inay ahayd salad cagaaran oo ay maqaaxi cunto ka cuneen, ama iskriin sida loo sameeyay ay shaki leedahay oo ay ka cuneen meheradaha cabitaanka lagu iibiyo. hodheelka Al-Curuba oo ay dadka shisheeyaha inta badan ku soo degi jireen saan horeba u soo sheegay waxa uu la circiirayay basaasiin. siyaad bare waxa uu si joogto ah iga caban jiray dawladdeeda oo uu ku sheegayay inaanay sidii ku habboonayd ugu dadaalin inay maalgashadayaasha Maraykanka ku dhiirigeliso Soomaaliya. runtiina waa aan isku daynay inaan maalgashatada Maraykanka ku dhiirigelino Soomaaliya, laakiin waxa ay noqonaysay in aanu si toos ah runta ugala hadalno una sheegno xaqiiqada ka jirta Soomaaliya. waxaase uu madaxweynuhu rumaysan kari lahaa in qaar ka mid ah maalgashadayaashaas lagu indhasarcaadin kari waayey ballanqaadyo ganacsi oo been ah. milixdu ma ay ahayn sababta keliya ee ay ahayd in Maraykanku uu xiiseeyo RAAS Xaafuun, balse waxay lahayd faa'iidooyin militari oo dihin, taas oo ay danaynteedu sii korodhay isla markii uu General George Christ taliska ciidamada CENTCOM kala wareegay General Robert Kingston. General George Christ oo ahaa sarkaal 4 xidigle ah ayaa markiiba yimi Soomaaliya, waxaanu u socday inuu la kulmo wasiirka difaaca ee Soomaaliya Maxamed Cali Samatar. ujeedada kale ee uu socday laakiin aanu Cali Samatar u sheegin waxay ahayd inuu soo arko RAAS Xaafuun. General Christ waxa uu ahaa nin gaaban oo dhuuban laakiin aan Itaali yarayn, shakhsiyadiisuna ku soo dhaweynayso. aniga iyo General Christ wadajir ayaanu kulan qalbi furan isku qaabilnay wasiirka gaashaandhigga Maxamed Cali Samatar oo isna ahaa nin ka sii gaaban General Christ laakiin aan u dhuubnayn sidiisa. kulankii kadib ayaanu fuulnay diyaaradda waaxda difaaca safaaradda iyadoo ay lahayd oo ahayd nooca C-12 loo yaqaano oo 2 mishiin leh. qofka Soomaaliya jooga Muhiim ayaa ahayd inuu diyaaraddan oo kala haysto si uu dhaqso ugu gaaro halka uu rabo, haddii kale waxay noqonaysaa inuu maalmo ku sii jiro jidka ama badda. duulimaadyada kaliya isaga gooshi jiray Soomaaliya gudaheeda waxaa bixin jirtay shirkadda duulimaadyada Soomaaliya ee Somali AIRLINES, waxaana adeegsan jirtay diyaaradda Fokker F-27 nooca 2 mishiin leh ah oo ahayd tan kaliya ee ku hadhay shirkadda. waxaan xog ku helay in diyaaraddan dayactirkeeda aad u liito, kadib waxaan amar ku soo saaray in aanu qof kaliya oo Maraykan ah ku safri karin. waxaa jiri jirtay diyaarad labaad oo isla nooca F-27 ah oo iyadana ka shaqayn jirtay gudaha dalka. diyaaraddan oo ahayd kharaab dirqi ku shaqayn jirtay waxay burburtay bilayar ka hor imaanshiyahaygii Soomaaliya. maalin maalmaha ka mid ah oo ahayd maalmaha diyaaraddan u astaysan inay rakaab ka qaado Muqdisho oo ay waqooyi geyso ayuu duuliyihii diiday inuu ka kaco garoonka isagoo ka cabanaya in xaaladda diyaaradda aanay fiicnayn, laakiin markiiba waxaa loogu hanjabay in haddii aanu diyaaradda kicin xabsiga loo taxaabi doono. duuliyihii waa uu kiciyey diyaaradii, laakiin waxaa dhacay wixii uu ka baqa qabay oo dhowr daqiiqadood markii ay hawada ku jirtay ayay diyaaraddii burburtay, dhammaan dadkii saarnaana ay ku dhinteen. Marjaan Tube.